qof alla wadaagta sheeko adduunka haddaad ka weydo qalinku nafis buu wataaye waraaqa ku qoro oo intaada kulanti wacan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada Kacab Media haddii aad nagu cusub tahay fadlan waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe ay saarto like aad taabato comment aad bixiso ku soo dhawaada muuqaal cusub muuqaalkan waxaan ku eegi doonaa isla markaana aan ku dul istaagi doonaa saacadii la soo dhaafay waxa baraha bulshada qabsaday gaar ahaan aaladda TikTok muuqaal video kaas oo laga duubay kuwin Arab oo caan ka ah barta TikTok muuqaalkaas ayaa bulshada isticmaasha baraha bulshada waxay ka bixiyeen ficilo kala duwan kuwin Arab oo caan ka ah barta TikTok ayaa barteeda waxa ku xiran dadweyne aad u fara badan waxayna soo gelisay muuqaalo inta badan dadka ay ku madadaaliso kuwaas oo bulshada ku xiran intooda badan ay ka heleen laakiin arinta aan rabno inaan ka hadalno ama aan dul istaagno waxa ay tahay muuqaal laga duubay kuwin Arab iyadoo qaawan taas oo saacadii la soo dhaafay lagu baahiyay baraha bulshada gaar ahaan baraha Instagram-ka dadka qaar ee isticmaala baraha bulshada ayaa sheegay in gabi ahaanba qofkii haya muuqaalka qaawan ee laga duubay kuwin Arab gabadha Soomaaliyeed isla markaana wax loogu dhimayo sharafteeda in gabi ahaanba ay iska tirtiraan isla markaana ay ka tiraan meelaha ay ku arkaan sida la sheegay muuqaalka qaawan kuwin Arab waxa ka duubay wiil uu kala dhaxeeyay Haasaawe taas oo iyadoo ku jirto musqul uu ka duubay isla markaana ku baahiyay baraha bulshada arintan ayaa muddooyinkii dambe waxay ka socotay baraha bulshada dadka isticmaala oo intooda badan dhagahooda xilligan aan ku cusbeen ruux hebel ayaa laga duubay muuqaal fadeexad ah ama isagoo qaawana waxaana horey u dhacday in muuqaalo caynkan oo kala ah gabdha Soomaaliyeed laga duubay kadibna lagu baahiyay baraha bulshada kadib markii Haasaawe la sameeyay fanaanada caanka ay Farxiyo Kabayare oo kamid ah fanaaniinta ugu caansan Soomaaliya ayaa waxay ka hadashay falkan ku dhacay kuwin Arab oo gabar Soomaaliyeed waxaana inta badan ay digniin ay siisay gabdhaha Soomaaliyeed in muuqaalada caynkan oo kala laga duubo waxay sheegtay in gabdhaha Soomaaliyeed looga baahan yahay in gabi ahaanba aysan aaminin ragga ay la haasaawayaan xitaa haddii laga maami waayo qofka aad haasaawaha idinka dhaxeeyo muuqaal ii soo dir hadduu ku yiraahdo waxay tiri Farxiyo Kabayare waa in wajiga adigoo ku xiran yahay muuqaalka aad u dirta iyadoo sheegtay in ragga Soomaaliyeed aan xilligan la aamini karin isla markaana muuqaalo qarsoodiha ay ka duubayaan gabdhaha Soomaaliyeed kadibna ay ku shaacinayaan baraha bulshada galabta intaan isu imaanin aan filanka dubistiisa aanan bilaabin ayaa waxaan ku bilaabay in Snapchat-yada iyo Facebook Messenger-ka iyo in la kugu soo diro ii sheeg clipkaas la wareejinayo kulligiina isu dirteen kulli waa hubaa inaad kulligiin isu dirteen horta waa alxamdulillah 2020 ay ahayd umaleynaa markii aan iri walba kala reeba hadaan la hureey waayahan waa ka nasanay xoogaa gabdhihiina oo soo ilbixeen waayahan dambe raggu ay eedeynayeen waxay dhaayeen Kabayaray abaayoy waa iska nuursan jirnay laakiin after advice-kaagi waxa waaye wixii hala kala reebaa tiriyo wajiga waan halka qariyaa awal laakiin waa nuursan jirnay halkaas waxa ka cad nuursashadaas la sheegayo inay wajiga tahay in la soo raaciyo inay jecel yihiin oo wajiga markii laga reebay waa ay eedeynayeen wiilashu waxaan sheegtay in cid kasta oo haysa muuqaalkan ee laga duubay gabadhan Soomaaliyeed in gabi ahaanba ay tirtirto isla markaana fadeexadaasi laga duubay gabadhan Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Nairobi ee dalka Kenya arintan ku dhacday kuwin Arab ayaa dhalisay hadal hayn badan oo saacadihii ugu dambeeyay ka dhashay baraha bulshada kuwin Arab oo soo duubtay muuqaal ayaa sheegtay inay qabto duulal mararka qaar ku qasbaya in gabi ahaanba isqaawiso isla markaana taas ay keentay barta TikTok kuwin Arab ay ku leedahay ayaa saacadihii ugu dambeeyay waxay soo galeysay muuqaalo isdaba jooga muuqaaladaas oo wajigeeda laga dheehan karay sida ay ugu xun tahay wixii dhacay waxayna soo duubtay muuqaalo dhowr jeer ay ku oonayso isla markaana ay ilmeynayso iyadoo bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa baraha bulshada isticmaala ka dalbatay in gabi ahaanba muuqaalkaas ka fakaday ay iska tirtiraan isla markaana looga baahan yahay in gabi ahaanba warka meesha lagu joojiyo laakiin dadka baraha bulshada isticmaala ayaa saacadihii ugu dambeeyay hadal hayay arintan ku dhacday gabadhan TikTok caanka ah ee lagu magacaabo kuwin Arab
kuwan carab ayaa horay waxa ay soo duubi jirtay muuqaalo iyadoo jirkeeda uu xooga uu qaawan yahay laakiin tani ayaa waxa ay tahay mid aad fadeexad